ayadoo la eryaaya loo geliyay Kenya ayagoo cararaya oo naf bidaya tageen nin kasta oo Soomaali ah oo carara oo xuduudda ka gudba oo cid kale oo banaanka ah magan gala u orda ama magan u galo ama kaalmo iyo xoog haga doontee nin kale oo Soomaali ah qof kale oo Soomaali uu ka cararay iskama jeclaan iskama caashaqin kumanaanki milyanka qof ee qaxootin ku noqda Kenya dalxiis uma tagin Kenya Soomaali kale oo dalkan jooga ama dawlad ha ahaado ama si kale u xoog badnaadee eriyay ayaa xuduudda ka gudbay mas'uuliyadda madaxda dalka ay ku dhacay inay dalka isku hayso dadka siyaasadda ku jira isku hayso ee qabkooda marka qaarkood liqaan si dalka la isugu hayo ee dadka waa midaas midda dhabta ah oo xaqiiqada ah oo maanta in la turjumo u baahan ma aha hebel ajnabi iska jeclaaday cadda aadaya caashaqaya keensaday ma aha Axmed Madoobe iyadoo loo yaqaano hogaamiyaha Jubbooyinka ayaa tagtay Kismaayo dana qaldaneen waxaad ugu yeertay madaxweynaha Jubbaland madaxweynaha waxaan ku naqaan in baarlamaanku doorto oo dadku ah marka sidee u suura gashay iyadoo hogaamiye isagoo ogol yahay in aad Kismaayo tagto aad tiraahdo madaxweynaha Jubbaland wuxuu ogolaayay waxa kale horta waxa waaye ogaal badan kaaga maqan waxay u baahan tahay in la ogaadee annaga markaan Axmed Madoobe madaxweyne waaye aan dhahaynay dadka reer Jubbaland qulubtooda aan ka shaqaynaynay inaanay cararin oo aanay Kenya ka soo jeesan waa ka keenaynay Jubbaland dhismaheeda ayadoo Karin xaafadda Liiraa Nairobi ku taalo looga hadlo oo shirkeedu ka socdaan aniga xafiiska imiday September 2012 markii dambana isku daynay waxaan ku qanci weynay madaxdii joogtay inay noo yimaadaan halkan noogu yimaadaan oon wada hadalnay naga diideen inaan u tagno oo aan meeshooda kula hadalnana waa naga diideen xaajidii markay meeshaas marayso waxaan go'aansanay inaan weydiino dhaana maxaa rabtiin waxay dhahan dibadda inaan ku wada hadalna rabnaa waa iswarsanay dibadda aan kula soo hadalno markii u dambaysana aan dibadda aan dad Soomaaliyeed aan kula hadalno dibaddaan tagnay waa soo heshiinay gudahan ku soo noqonay heshiiskii sidii loo implement gareynay kalsoonidii mar walba meel u soo gaaraysay meeshaasay gaartay Axmedna maalintaas isagu wuxuu qabay in la doortay dadkiisu doorteen baarlamaan doortay uu qabay annaga baarlamaankana aan shaki ka qabnay doorashada shaki ka qabnay ul shaqaadis iyo jiidis waa isla gurugeynay haddii uu hogaamiye inuu ahaado oo nugula shaqaynayo laakiin madaxweyne inuu ahaado si ka sii fiican oo noola shaqaynayo sida fiican aan door bidnay